kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group wada alaba ka daawanteen warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba warbixinada ku saabsan fanka iyo suugaanta Soomaalida xaqiiqooyinkii ugu dambeeyay ee la isku halayn karo waxaan saami ku yeelan hargeyso samirkeeda midigta laga siiyo jabuuto sida fiican abidkeedu siraadan gaariso sumadeena calankeeda la saaro jijigo saban khayr leh rabbigeenu siyaadsho muqdisho nabad suuban saldhigeeda ahaata fadlan daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay ee boggeena YouTube aad soo boqoto ha ilmaamin inaad ka mid noqoto boqolaalka kun ee qof ee nagu xiran subscribe saaro gambaleelkana furo si ay markaas ku soo gaaraan warbixin walba oo aan halkaan soo gelino ku mahadsanid warbixinteena maanta waxa aynu ku eegaynaa xaaladii ugu dambeysay ee uu ku sugan yahay wariyaha samafalaha ah ee ay maamulka Somaliland xireen bilooyinkii la soo dhaafay wariyahan ayaa ku jira xabsiga in ka badan 2 sano maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa 8 July 2019 waxay xukun xabsi ah ku riday wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo bilooyin badan xabsi ku jiray Coldoon ayaa lagu eedeeyay inuu u gafay qaranimada ay sheegato maamulka Somaliland iyo sidoo kale inuu caqabad ku noqday gooni istaagooda iyadoo dacwadu sidoo kale ay ku jirtay aflagaada lagu sheegay inuu wariyuhu u geystay dugsiga loo yaqaan Abaarso waxa Cabdimaalik Muuse Coldoon lagu xukumay 3 sano iyo sidoo kale 6 bilood oo xarig ah iyadoo marar badan sidoo kale loo xiray wariyahan Cabdimaalik Muuse Coldoon arinta xasaasiga ayaa waxay tahay in wariyaha loo diiday in ay soo booqdaan caruurtiisa iyo faamilkiisuba wariyahan ayaa waxa uu dhalay 3 caruur ah 2 wiil iyo gabar wariyahan ayaa waxa uu dhashay wiil bishii 12aad ee sanadkan 2019 wiilkan oo lagu magacaabo Caadil Yare xaaladii ugu dambeysay ee wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa laga dayrinayaa iyagoo wariyaal badan oo ay saaxiibo yihiin iyo ku dhow ay noo sheegeen in wariyuhu uu aad uga cabanayo xaaladda xabsiga wariyaha ayaa sanfalkiisa ka sii waday xabsiga isagoo boqolaal kun oo xabsiga ku xiran ugu akhrin jiray quraanka halkaasi wariyaha ayaa dad badan ka aflixiyay intii uu ku jiray xabsiga quraanka kariimka xaaladii ugu dambeysay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon iyo xaqiiqooyinkii ugu dambeysay ee gayiga Soomaaliyeedba halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal ha ilmaamina inaad nagu soo birtaan oo aad gambaleelkana furataan mahadsanidin daawadayaal